Turjubaanka ama toolke oo looga yaqaano waddanka Sweden waa xirfad ka mid ah xirfadaha ay bartaan dadka Soomaaliyeed badankooduna qaarkood ay ku shaqaystaan. Waxa aad loogu dhaariyaa in gebi ahaantoodba aysan faafin siraha la wareystaha iyo waxa dhex mara, waxaana uu sheegaa in uu yahay qof aamin ah oo aan sheegaynin waxa qofkaasi uu sheegto si saxan ah uu ugu turjumayo. waana qayb ka mid ah sukuuradka ama qaybaha qofka looga baahan yahay inuu buuxiyo ama shuruudaha ah inuusan sheegin qofkaasi waxa uu ku hadlay iyo waxyaabihiisa u gaarka ah uusan bannaanka u soo saarin cidnana la wadaagin. Dad badan oo Soomaaliyeed oo aan la sheekaystay ayaa waxa ay sheegeen in dad badan oo aan aqoon lahayn luqadda waddanka Sweden ee turjubaanka ay ku shaqaystaan luqadda tan, taasina ay khalkhal geliso qofkii waxa uu sheegi lahaa in si saxa looga gudbiyo. Sidoo kale waxaa jira caqabado la soo gudbanaada qofka turjumaya iyo qofka loo turjumayo, taasoo mararka qaarkood ay isfahmi waayaan. Sababtoo ah qof ka yimi magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay turjubaan, waxa uu turjumayaa kaba soo qaad qof ka yimi Djibouti. aad ayay u adag tahay inay isfahmaan, sababtoo ah waxay aad ugu kala duwan yihiin dhinaca hadalka ee luqadda, taasoo hadallada qaarkood aysan isla fahmaynin. Sidoo kale qof ka yimi Muqdisho iyo Hargeysa ayaa aad iyaguna isugu dhiban marmarka qaarkood, inkastoo ay isfahmayaan iyagu. Ma la kulantay turjubaan aad fahmi weyday oo kugula hadlaya luqad kale oo aanad fahmaynin? mase la kulantay qof aan garanaynin luqaddii oo aad adiga laftigaaga ee lagu turjumayo aad ka badiso? Mahadsanidin.